madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Silici wafdi ballaadhan oo hogaaminayo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaano ayaa maanta socdaal shaqo ku soo gaadhay magaalada Boorama iyadoo intii ay soo gaadhay magaalada Boorama soo dhaweyn ballaadhan loogu sameeyay degmada Dila oo afaafka laga soo galo gobolka Awdal halkaas ay ku sugnaayeen dadweynaha kala duwan ee degmada Dila isla markaasina isugu soo biyo shubtay gool fagaara waxaana halkaas ugu horeyntii kaalay meeyirka degmada Dila isagoo mas'uuliyiinta uga mahadnaqay socdaalka shaqo ay ku yimaadeen degmada Dila qaar ka mid ah oday dhaqameedka gobolada galbeedka Soomaaliland oo iyagana halkaasi kaalay ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Dila ay wax ka qabtaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Umar Sheekh Maxamed Faarax oo isna halkaasi kaalay waxa daladiisii kamid ahaa dadka mugdi kaga jira sanaadiiqda meesha la dhigi doono iyo meesha inta maalmooda laga tagi doono taas wixii cabasho ah waa laydiin reebi doonaa waana laydiin sheegi doonaa waana laydiin reebayaa waana ka dhankisan laydinku xidhiidhi maayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo sayna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay waxaan aad iyo aad maanta idinkaga mahadnaqaynaa anoo ka wakiila wafdiga waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta ka duwan soo dhaweynaha qaarkood ee ka muuqato kalgacalka waliba si gaara meel fog ka soo go'ay kalgacal qura ma ahayne ee dhallinyarada iyo carruurta iyo hooyada iyo waayeelka iyo ragga iyo dumarka oo farxadda wajigooda ka muuqatay si noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Silici oo sagna halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan degmada Dila uga mahadnaqay soo dhaweynta milgaale loogu sameeyay degmadaasi culayska u taabana maanta hadii bariga hore kuleelka iyo xeebta culayska saarnay maanta waxa saaray oogada saaray hadii gebiga tahay hadii Boorama tahay hadii degmada Bakiya oo xaqna Dila ka joogna tahay inta waxa la saaray beerleyda maanta la gaarsiiyo sababtoo waxa loo ognahay in wixii u baxay maanta oo meesha ka baxay oo abaar maanta nagu dhacday wax soo saarkeeni waxa la sheegay marka la qiyaasay boqolkiiba in 7 helnay 2004 wixii noo baxay maanta waxaanu helnay boqolkiiba 7 waxay naga dhiman oo maanta ay cuntada cunayna ama helaynay boqolkiiba 3 marka waxaan baaxmusharigiina ma shalaala shirnay madaxweynuhu barito wala daala ka dhigo waxa loo xibaa mushariga caasimadda Soomaaliland joogay baa la shirayaa gurmad qaran baa la galayaa dibadii gudub waan u qaylinay insha Allah waxaan rajaynaynaa in maartay dadka maartay laga soo gaaro si ay maartay cunto helayeen maadaama xoolihiiba ay maartay culays ka saarmay intaasi kadib wafdigu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa loo soo galbiyay dhinacaasi magaalada Boorama iyadoo la qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Boorama ay ku soo dhaweeyeen deegaanka Garayacow iyadoo intaasi kadibna wafdigaasi u soo boqoleen dhinacaasi magaalada Boorama iyagoona khayriyada magaalada Boorama kala hadlay shacabka tirada baneed ee ku soo dhaweeyay magaalada Boorama waxaana uga mahadnaqeen soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Boorama siyaasi Saleebaan Qolombiyo oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani oo warbaahin kula hadlayay magaalada Boorama ayaa waxa uu ka hadlay socdaalka shaqay maanta magaalada Boorama ay ku soo gaadheen wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaana ku tilmaamay oo dadweynihii joogay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama iyo intii wadanka iyo xisbiga wadani oo aad iyo aad uga shaqeeyay labadan gobol ayaa waxaad moodaa in maanteeto ay noqotay in ay tusaale ku bixiyaan in madaxweynihii Soomaaliland oo isagoo markaa olole u socda kuna gabanaya inuu socdo in kaararka la qaato isagoo gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi maanteeto ay khayriyadii cid ugu iman weyday oo ay ka qudbadeeyeen khayriyadan cid ma joogin soo ku daawan doontaan hadii la yiraahdo TV-da ka arki doontaan hal qof oo soo taagay ma jirto taasina waxa weeyaan waa baaq aan u dirayno dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland oo leenahay kulmiye waqtigiina waa dhamaaday sidaas darteed ayaan leenahay waxa weeyaan wax jira oo ma jiraan waana waxa weeyaan tusaale fiican intaas haddii ku filaato iska khasaarin wixiina hawshiina waxaad yeeshaan ku qanca
si kastaba arrintu ahaatee socdaalka shaqada ay ku yimaadeen wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa waxa la filayaa inuu qaato muddo 2 maalmood iyagoo markaasina kulana kala duwan la qaadan doona waxgaradka iyo aqoon-yahanka siyaasiyiinta gobolka Awdal sidoo kalena waxa la filayaa inay ka qayb galaan xafladda lagu shaacinayo in si rasmi ah gobolka Awdal ay ka furmi doonto diiwaangelinta codbixinta oo maalinta Sabtida gobolka Awdal ka bilaami doonta waa Maxamed Xasan Ismaashir beera telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Boorama